Turkiga iyo Israa'iil qarka waxay u saaran yihiin in ay foodo isdaraan oo ay dhinacyadani dagaalamaan maalinba maalinka ka dambeysa sekanka ka dambeysa Israa'iil waxa looga cabsi qabaa in dagaal qaaban oo bareer ah ay ku soo qaado Turkiga iyada oo garabsanaysa Mareykan. inkastoo marka loo fiiriyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Turkiga xilligan uu wanaagsan yahay, haddaba aan kula wadaago sirta daahsoon iyo halka sida gaarka ee arrimahan isaga xiran yihiin oo ay dhinacyadani ama Israa'iil ay ku culaadinayso isla markaa ay doonayso in ay la dagaasho ama ay kula dagaalanto markaasi dalka Turkiga muxuu sameeyay? Waa maxay waxa keenaya in xilligan Israa'iil ay faraha la gasho Turkigana ay markaasi la dagaalanto? inta waxaad ku darsataa in Israa'iil xilligan ay dhiigbaxayso. Israa'iil oo dhiigbaxaysa waa maxay marka? iyadoo dhiigbaxaysa oo saameyntii wax weeyaan dagaalka Iiraan iyo dhaawacii Iiraan ay u geysatay wali iyadoo aan ka soo kaban, haddana maxaa keenaya in Turkiga ay ku duusho ama ay la dagaalanto? halka wax ay isaga xiran yihiin iyo sirta gaarka ah ee jirta daawade ee aanad ogeyn ayaan kuu faa'iideyn doonaa. waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkani like saarto, channelkeena wuu cusub yahay, subscribe aad soo saarto. innagu waxaynoo tahay dhiirigelin, adigu waxba kaama dhibayso, innagana waxaynu halkani kugu soo gudbinaynaa, adiguna aad ka heli doontaa xogo rasmi ah oo xaqiiqooyin ku dhisan oo aanu markaasi innaga oo kaashanayna ila sirdoon. aan kula wadaago xiisadda xilligan sii kordhaysa. Turkiga waxay taageertaa dowlad dhexe oo xooggan oo ka jirta Syria. marka loo fiiriyo wararkii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'iil ay sii kordhayso, inkastoo aysan weli si toos ah dhinacyadii ay fooda isu darin. haddana waxa ugu weyn ama meesha ugu weyn ee khilaafku ka taagan yahay waa dhanka Syria. Israa'iil Syria waxa ay ka wadaa dhaqdhaqaaq waxayna ku yeelanaysaa saameyn ballaaran. marka loo fiiriyo isla arrintaasi talaab aan ka duwanayn markaasi talaabada Israa'iil ay qaadayso iyo saanta Israa'iil saan aan ka jilicsanayn ay dhanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu qaadaya. waxa uu saameyn ballaaran uu ku yeelanayaa gobolka, si gaar ah Syriana dowladda xilligan ka dhisan aad buu u taageerayaa. inkastoo dowladdan ay markeedii hore ahayd markaasi dowladda markaa Syria ka dhisan jabhad soo dagaalamaysay, haddana Israa'iil dhanka iyo dowladda markaa Syria ka tirsan ee Ahmed al-Sharaca uu hogaaminayo khilaaf gaar ah iyo dagaal gaar ah kala ma dhaxeeyo, balse si marka loo fiiriyo siyaasadda guud way isku hayaan. oo marka loo fiiriyo dagaalka Israa'iil iyo Turkiga ma ahan yani halka uu ku dhex marayo labada dhinac ama dalalka labadaasi ma ahan garoonka barxadda salaxa kubadda cagta ee dagaalkani uu ka dhacayo waa Syria. haddaba maxay tahay marka xogta qarsoon ee halkaasi ka jirta? xiisadan waxyaabaha sii kordhinaya ee Israa'iil inay ku duusho Turkiga sababaya kow waa Turkiga oo taageera dowladda dhexe ee xooggan ee ka jirta Syria. dowladdan oo nidaamkii Bashar al-Assad riday, tuurtay, dalkana gacanta ku wada dhigtay, oo isla markaaba sanadaha kooban ee xukunka ay gacanta markaasi ugu jirto Syria ay gaarayso horumaro ballaaran iyadoo hubka dhigis gebi ahaanba markaasi lagu sameeyo Syria. Israa'iil waxay ka walaacsan tahay saameynta sii kordhaysa ee Turkiga ku yeelan karto arrimaha Syria, gaar ahaan dhinaca militariga iyo amniga. marka loo eego Israa'iil walaaca xooggan ay ka qabto saameynta maalinba maalinka ka dambeysa sii kordhaysa ee Turkiga uu ku yeelanayo arrimaha Syria iyo faragelinta uu ku hayo dowladnimada Syria, gaar ahaan weliba dhanka militariga iyo amniga, taasi oo marka loo fiiriyo hanaanka Turkiga wax u maamulayo ay Israa'iil u aragto mid gebi ahaanba liddi iyadu ku ah, isla markaana khatar amni qaran ay dareemayso. labadani dal waxay leeyihiin aragtiyo aad u kala duwan oo ku saabsan mustaqbalka Syria. dowladda Israa'iil waxay xilligani Syria ka rabtaa xukuumadda markaasi ka dhisan inay noqoto mid dabadhilif ah oo iyada hoos timaada iyadoo ay maamulato,
halka xukuumadani xiriirka ballaaran ee ay la leedahay Turkiga uu noqonayo saameyn iyada liddi ku ah isla markaana nidaamka dowladnimo ee ka jira Syria oo gacanta u gali doono markaasi wax weeyaan Turkigana si cad gabi ahaanba waxa ugu soo horjeeda Syria si cad wuxuu ugu soo horjeeda Israa'iil oo waxa cabsida weyn ee hadda la qabayaa in dhinacyadani ay fooda isdaraan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan maanta u dambeysay waxa uu sheegay in weerarada Israa'iil ka wada Syria iyo Lebanon ay khatar ku yihiin amniga Turkiga sidoo kale wuxuu ku eedeeyay Israa'iil inay gobolka gelinaysa xasilooni darro cusub heerka xiriirka iyo saameynta Turkiga iyo markaasi nidaamka Turkiga oo ka raba Syria waxay gaarsiisan tahay heer weerarka iyo dhibaatada lagu hayo Syria in ay lid ku yihiin amniga Turkiga oo ay saameyn ku leeyihiin dhanka kale Israa'iil waxay sii wadaa duqeymaha ay ka fulinayso Syria iyo Lebanon iyadoo sheegaysa inay beegsanayso kooxo ay u aragto khatar amni kuna tilmaanto argagixiso aan ku soo koobo micnaha guud iyo safarka ujeedadani ma dhici kartaa in dagaal toos ah dhinacyadani dhaxmaro hadda khubarada badankood waxay rumaysan yihiin in dagaal toos ah u dhaxeeya Turkiga iyo Syria uusan soo dhaweyn balse waxaa jira tartan xoogan oo saameyn ah oo ka socda Syria labada dhinac waxay kordhiyeen diyaar garowgooda military taas oo walwal iyo cabsi balaaran ka keenaysa gobolka maadaama hadda gobolka uu aad ula liicayo dagaalka markaasi u dhaxeeya Israa'iil Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan waxaa jira cabsi ah in ay dhacdo in markaasi dhacdo yar oo Syria ka dhacda ay horseedi karto isku dhac military oo dhinacyadan ah haddaba aan ku siiyo gunaanadka guud xilligani khatarta ugu weyn ma ahan dagaal rasmi ah oo Turkiga iyo Israa'iil dhaxmara balse waa tartanka sii xoogeysanaya ee Syria iyo bariga Mediterranean-ka hadallada kulkulul ee Erdogan iyo howlgallada Israa'iil ee Syria ayaa sababay in xiisadu sii kororto maalinka ka dambeysa taas oo iyana dhanka kale kuleylka ku sii kicinaysa haddii ay howlgal sameyso haddii ay talaab qaado Israa'iil dhanka kalena Turkiga aanu ka yareysanin oo uu talaab kala qaadayo oo marka si loo fiiriyo dadaalada dhinacyada kala duwan ee Syria ay ugu jiraan waxaa muuqata in Israa'iil loogaga itaalroonaanayo dhanka awoodda iyo saameynta wax weeyaan Syria hadaba daawada adigu maxay kula taaragtida qaybta hoose commentiga nagula wadaag waxa markale ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto maadaama annaga ee noo dhiirigelin muuqaalkan aad like gareyso saaxiibadaada hal iyo laba aad kala wadaagto soo dhawaada markale daawadayaal waxay noo baranaa muuqaalkan muuqaalka xiga oo aad ka daawan doonto isla channelkeena halkaas aan kugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay wararka caalamka iyo xogaha sirdoon ee aysan dadku ogeyn